Ma maqashay mashiin lagu sameeyo ku tallaalid madax? Waxay u eg tahay sheeko saynis mala awaal ah, balse mararka qaarkood waxaa laga hadlaa inay noqon karto fikrad caafimaad mustaqbalka ah. Mashiinkan dhab ahaantii ma jiro, lagumana isticmaalo isbitaalada maanta. Waa nidaam mala awaal ah oo loo qorsheeyey inuu taageero qalliin aad u adag oo halis weyn leh. Fikradda ayaa ah in mashiinku sii hayo maskaxda qofka si ay u noolaato, halka jirkii dhaawacmay lagu beddelayo jir kale oo caafimaad qaba oo deeq bixiye ah. Mashiinku si taxaddar leh ayuu u maamuli lahaa socodka dhiigga, helitaanka oksijiinta, heerkulka jirka, iyo habaynta neerfayaasha. Doorkiisa wuxuu ahaan lahaa nidaam nolol taageero aad u horumarsan, oo si joogto ah u ilaalinaya maskaxda iyo xudunta lafdhabarta. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa dib u isku xidhidda xudunta lafdhabarta. Saynisyahanadu weli waxay daraasaynayaan sida neerfayaasha loo hagaajin karo, si fariimaha ay uga gudbaan maskaxda una gaaraan jirka cusub. Haddii aan si guul leh loo hagaajin neerfayaasha, dhaqdhaqaaq iyo dareentoona ma suurtageli doonaan. Fikraddani sidoo kale waxay dhalinaysaa walaacyo waaweyn oo anshaxeed iyo caafimaad, oo ay ka mid yihiin badbaado, aqoonsiga qofka, oggolaanshaha, iyo natiijooyinka muddada dheer. Sababahaas awgood, khubaro badan waxay aaminsan yihiin in tiknoolajiyadani ay weli aad uga fog tahay inay noqoto mid dhab ah oo la hirgelin karo.